maanta booqashadii maalinta barkeeda ahayd ee aan muqdisho ku tagnay waxa aan wadahadalo muhiima la yeelanay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, afhayeenka iyo golaha wasiirada. ujeedada ugu weyn ee wadahadalkuna wuxuu ku salaysnaa sidii aanu xusuusta uga saari lahayn taariikhdii dagaalkii iyo sheekooyinkii colaadeed ee ina soo maray, sidoo kale sidii aan uga hortegi lahayn in jiir dambe aysan u gudbin nacaybkaasi. matacsi ayaan ku jiraynaa weligeen, miyaanay intaa nagu filayn korneyl Mengiste iyo Siyaad Barre xaaladda ay abuureen, miyaynaan uga gudbi karin xaalad isdhexgal iyo midnimo. sidaa ayaan ku wada hadalnay, rajo fiican way noo muujiyeen, waxaana ugu muhiimsanayd sidii aanu u samayn lahayn isdhexgal dhaqaale iyo mid bulshada mustaqbalkana nagu hogaamin karta inaan noqono hal wadan, dhaqaale kala daadsan oo aynu dekedo kirayno ama bun kaliya dhoofino waxaa ka muhiimsan dhaqaale midaysan oo bariga Afrika yeesho. wuxuu leeyahay khayraad iyo dekedo fara badan bariga Afrika. haddii aan meel isugu keeno in aan noqon karno dal weyn oo midaysan sida Mareykanka, Yurub iyo dalkaasi Imaaraadka oo kale. dhexdeena markaan isu soconno dakhli badan ayaan isdhaafsan karnaa. Soomaaliya, Ethiopia iyo Geeska Afrika haddii la isku daro tiro ahaan waxay u dhigmaan kala badh wax ka badan dalka Mareykanka dadka ku nool. waa tiro aad u badan. guud ahaan haddii bariga Afrika sida isku dhexgal looga qorsheeyo suuqa Mareykanka ayaan halkan keeni karnaa. waxaynu noqon karnaa dal weyn oo heshiis simanna gaari kara. hadda laba dhib ayaa ina haysta, mid aqoon leh oo aan waxba aanay aqoontii u tarayn iyo mid aan aqoon lahayn waxba isma dhaamaan oo ma kala duwana. kan waxbartay aqoontii ma adeegsan karo oo waxba ma akhriyi karo. midkan kale ee aan aqoonta lahayna kama faa'iideysan karo aqoon la-aantaas. waa in aan wax akhrisaa oo wax barataa. innaga deked ma lihiin oo waan ognahay oo waan go'doonsannahay oo waxaynu nahay dal aan deked lahayn. dhinaca kalena dekedo ayay haystaan, laakiin hal markab keliya xataa kuma isticmaalaan oo ugama faa'iidaystaan. marka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba waa sabool. biyaha haddaan deked ahaan u adeegsano waxaan aaminsanahay in aan khayraad badan isdhaafsan karno, sidaana dhaqaaluhu ku kobci karo. annaga marka Ethiopia haddaan nahay ka warwari mayno deked. Soomaaliya waxaa ku nool dad gaaraya 12 milyan, Ethiopiana waxaa ku nool 100 milyan. wadamada kalena markaan ku darno waa tiro aad u badan. innaga ayaa suuq isugu filan. dhinaca horumarkana waxaan isleenahay horumar ayaa laga gaari karaa. halkan fariin ayaa taalla, waxay tahay in wadamada Afrikada bari midoobaan, sidoo kale wadamada Afrika inay iskaashi yeeshaan. halkan Ethiopia qowmiyad kasta qowmiyada kale ee walaalkood ah ay walaalaha yihiin way riixaysaa oo way dhaawacaysaa. marka fikradahaas oo dhan ee iska soo horjeeda ayaa jira. hadda kadib Ethiopia waxay aaminsan tahay waxa isku soo jiidi kara Geeska Afrika waa isku dar, waa ballaadhin, waa horumarin. in dalalku dib u dhac ku sii jiraan cidina ma aqbalayso, cidna ma anfacayso. sidaa daraaddeed fikradahan cusub ciddii qaadanaysa, fikradahan cusub ku shaqaynaysa oo aan dhib lahayn laguna saleeyay aqoon waanu soo dhaweynaynaa. daraasad iyo cilmi baaris inkastoo ay waqti u baahan tahay, shacabka Ethiopia hadday isu diyaariyaan shacabkan weyn, suuqan weyn, wixii dhimanna ay dhammaystiraan heer caalami ahaan, dhaqaale badan oo wadan weyn lagu dhisi karo kartideeda ayay leeyihiin. annagu waan bilaabaynaa, caruurtayada ayaa dhammaystiri doonta. waxaan bilaabayno waa wax aan burburi doonin.